imagine 3 milyan oo qof oo Soomaali ah haddii ay gaajo u dhintaan. waa 40% Soomaalida Soomaaliya joogto. 40% oo ay badankood yihiin sida la sheegay ay noqon doonaan haddii aanan wax laga qaban caruur iyo waayeel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. walaalyaal waxaan rabaa halkan inaan maanta ka gaarsiiyo fariin culus dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daawan doonta fariintaydan ama cajiladan. walaalyaal fariintaydaas waxay tahay dadkii aan walaalaha ahayn oo aan wadaagnay dhiigga iyo dhaqanka iyo dhaxmada iyo dhalashada intaba waxay ku dhibaataysan yihiin oo ku baaba'ayaan dalkii hooyo. arrintaas waxaan ka wadaa waxa ka dhacday Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah way ugu daran tahay laga bilaabo xuduudda Kenya ilaa iyo bartamaha koonfurta Soomaaliya abaara aad iyo aad u baahan. sidoo kaleeto qaybta Itoobiya ee Soomaalida degto iyadana abaartu way ka jirtaa. walaalayaal fariinta idin dareeya waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah ha u gurmado dadka walaalihiis. qof kasta oo muslima ha u gurmado dadka walaalihiis ee muslimka ah. waxaan ku camal falaynaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigu wuxuu yidhi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali jasadin waaxid. tusaalaha dadka muslimiinta ah siday isugu turayaan oo isugu naxariisanayaan oo isugu dhimrinayaan waa sida jir oo kale. haddii jirkii qayb ka mida ay qandhato intii kale waxay la soo jeedayaan qandho iyo soo jeed baa ku dhacaya. maanta waxaa inoo og inaan soo jeedno khaasatan dadka ilaahay subxaana wa tacaala abaartaas iyo dhibaatadaas ka badbaadiyey. Soomaaliya abaar keliya maha waxaa haya duruufo aad u tiro badan. waxaa jirta nabadgelyo darro ama colaad muddo dheer soo socotay. waxaa jirta caafimaad la-aan. waxaa jirta maaragtay dhibaatooyin aad u tiro badan oo halkan ku xusi karin. laakiin fariinta idiin gudbinaya waxay tahay walaalkaaga Soomaaliga ee dhibaataysan ee waddanka ku dhibaataysan caawi. wax alla waxaad heli kartid $1 $100 $1,000 ka badan wixii ilaahay ku siiyey hormarso oo ku badbaadi dad. maalin kasta waxaa dhimanaya qof Soomaali ah oo islaama oo caruura oo dumar ah oo oday ah wuxuuna u dhimanayaa biyo iyo cunto la'aan. haddaba waxaan kaloo rabaa inaan fariinteedan aad ugu adkeeyo ka qayb qaado gurmadkii dadaalada socda. waxaa ordaya hay'ado aad u tiro badan organizationna tiro badan. masaajidkan hadda aniga aan joogo Abubakar Sadiq Islamic Center jimcadii ilaa hadda olo waxaa ka socday dhaqaale aruurin. waxaa noo yimid hay'adaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo awooda ama sharciyad u leh inay dhaqaale aruuriyaan oo waddanka gaarsiiyaan ayaa noo yimid. hay'adahaasaan ku aruurinayna lacagta si dadkii loo gaarsiiyo. walaal lacagta ha iska dirin ee hubi meesha aad ku dirayso. khaasatan dadka jooga Maraykan waxaan u sheegayaa inay sharci darro tahay inuu qof intuu lacag iska aruuriyo si shakhsiya uu dad kale si shakhsiya ugu daro waddankan isaga ah dhibna inuu ka soo gaari karo. waxaa jira hay'ado sharciyeysan sida hay'adda Haro, Araho, hay'adda Camuud iyo Read for Horn of Africa iyo hay'ado kale oo badan. hay'adahaas oo dhan waxaan ogahay inay haystaan waxa la yiraahdo 501c3 inay yihiin hay'ado xaq u leh inay dhaqaale kaa qaadaan oo gaarsiiyaan meesha aad dhaqaalaha ugu dhiibtid. marka waxaa waddanka dhaqaale looga saari karaa oo kaliya in hay'ad sharciyeysan aad dhaqaalahaaga u dhiibto iyaduna ay dhaqaalihii meeshii loogu talagalay ay geyso hadhowna ay xisaab soo celiso. adiga oo dadaalaya haddaad si shakhsiya aad lacag u aruuriso lacag u dirto hadhowna aad lacagta documenti jawaab ka soo celin karin waxaa dhici karta inuu culays kugu yimaado. taasina ay kugu kaliftay in berri aad ka qayb qaadan weyda dhibaato kale oo dhacda. masaajidda intooda badan dadaalaha ka socda. annaga halkan Abubakar hay'ado badan baan la xiriiraa oo dhaqaalaha u dhiibnaa. waad keeni kartaa masaajidka Abubakar dhaqaalahaaga. xilligan hadda dhar waxba ma tarayo, cunto ciiriinna waxba ma tarayso. waxa wax taraya waa lacag caddaana oo hay'adaha loo dhiibo si biyo raashin loogu gado. waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa fadhiga ka kac. waxaad heli karto oo ilaahay ku siiyey wax ka baxso. qof dhimanaya sabab u noqo inaad badbaadisid. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam beer kasta oo qoyan wixii la siiya waa sadaqo. waa beer kasta oo qoyan ha noqdo muslim ama qof aan muslim ahayn, ha noqdo xayawaan ama ha noqdo qof insaana. walaalayaal
fariinta aan ka helayno dadka ku hawlan abaaraha inay akhbaartooda aruuriyaan ama isxilqaamay sida qaramada midoobe oo kale waxay sheegeen qaramada midoobe waxay tiri ilaa 3 milyan oo qof oo Soomaaliya ayay abaartani saameynaysaa dad macnaha 3 milyan gaaraya waa boqolkiiba 30 ilaa 40 macnaha dadka wadanka ku haray in leeg oo macnaha abaar ay baabiinayso ma aha arrin qof iyo labo iyo hal hay'ad ay wax ka qaban karaan sidoo kale to culimada Soomaaliyeed xafidahumullah sida fadiilada Sheekh Maxamed Cabdi Umal fadiilada Sheekh Maxamed Sheekh Cismaan oo isxilqaamay oo tagay meelaha abaartu ay ka jirto dadkii yimid waxay soo sheegeen akhbaar aad iyo aad looga naxo oo dhilale oo aad internet ka heli karto sidaa daraadeed waxayna tusinaysaa akhbaarahaas iyo maalin walba sawirada aan ka arkayno telefishinada iyo websaydyada inaan wax ku qaadano oo qof walba oo mas'uuliyad isa saaro waxaan idinka codsanayaa marka si khaasa qof walba ama family kasta kharashka bishii ku bixi jiray in uu boqolkiiba 50 kaliya diro inuu bishii isceliyo oo boqolkiiba 50 isticmaalo 50 kalena bishaan oo abaarta u leexiyo waxa kale oo ikhwaani idin xasuusinaya inay bishii Ramadaan nagu soo fool leedahay oo barakaysnayd waxay ku soo aadaysaa abaartani dadka muslimiinta ahaa inaysan iyagoo abaaraysan oo dhibaataysan haddana helaynin waxay ku afuraan soon bay iskaga jiraan oo xilligan hadda bay sooman yihiin soonaan waajib ahayn oo aysan cuntiyo biyo haysan maca dalika markii Ramadaanku soo gaaro waxba ma helayaan fariin khaas waxa weeye marka waxa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii qof sooman afuriya wuxuu leeyahay ku afuriyay ajarkiisii isagoo oo labadoodiiba waxba laga nusqaaminaynin marka bishan barakaysan nagu soo dhow u niyeyso inaad dadka walaalaha dhibaataysan aad sadaqaysato oo aad afuriso abaartana ka badbaadiso wajazaakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ummad dhan ayaa tirtirmaysa fadlan meel kastoo aad joogto wax walba oo aad qabanayso awood kasta oo aad leedahay waxaa muhiima inaad ka qayb qaadato dadaaladan dadka lagu badbaadinayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوى الشيخ حسن جامعي وحنا إمام كمسجد دعوة وحن ربا ددوينها إن حصوصية ولا لها مسلمين تمام كشتي جوجان سومالي دا قاسهان إني سيدك دقيق يقول رمضان ولا الله هذا مساكين تأه لمنايا دباتيسن هوي لآن هيستا راشين لآن هيستا oo guriyooda ka soo qaxeen in la soo dhaweeyo waxaan xusuusinayaa aayada quraanka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku leeyahay yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira aayadaasi waxay tilmaamaysaa waxay ku soo degtaa la dhahaa markii Sayyidina Ali iyo Fatima bint Rasuulillah nabiga gabadhiisii xaaskii Sayyidina Ali waxay sameeyeen arrin cajiib badan isaga iyo xaaskiisa 3 maalmood ay soomeen 3 maalmood markay soomeen saddexdii maalmood waxay cuni lahaayeen oo dhan iyo wixii raashin guriga yaalay oo dhan masaakiinta siiyeen marka waa tusaale fiican weeyaan maalintii haddii reerku ku bixi jiray $50 anaga dadkan halkan jooga ay waxaan ula jeedaa $20 haddii ay ku bixi jirtay 3 maalmood haddii la soomo ama 30 haddii ku bixi jirtay 3 maalmood haddii la soomo waa $100 ay ku dhowdahay $100 family dhan ay bisha Ramadaan ay haynaysaa waxaan kaloo rabaa dadka inaan xusuusiyo hadalkii cajiibka badnaa hadaladii uu ka soo baxay مالك ماركتي كعب ابن مالك iyo Sacad ibn Waqas maalin dhibaato jirtay rasuulka Kaleey sallallahu alayhi wasallam u yimaadeen sida hadoo kale dhibka jiro mid ku dhow oo kale markaas waxay leeyahay rasuulullah maalkeen oo dhan waa kan waa sadaqaan u bixinay nabiga Kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu niyadiina waad leedihiin laakiin wax ka cishtuu yiri naftiina iyo ehelkiina wax u reebta marka diinta islaamka qofka waxa la sii ikhtiyaar oo ah inuu wax ka bixiyo maalkiisa inuu nus ka bixiyo inuu wada bixiyo sidii loo kala iimaan badan yahay inkastoo asxaabtii iimaankooda aanan lahayn laakiin waxaan rabaa kaliya inaan idin xusuusiyo waxyaalo fara badan inaan samayn karno aayadan markii ay soo degaysay oo saan soo sheegay naftoodii waxay rabtay iyo 3 maalmood inaan waxba cunin oo Ilaahay darteed u soomaan ayaa Ilaahay wuxuu yiri yut'imuna ta'ama ala hubbihi waxay quudinayaan dadka kale Ilaahay dartiisa u quudinayaan iyagoo markaasi jecel Ilaahay u qabaan iyagoo markaasi waxay jeclaayeen ama naftu waxay rabtay ee markaa ka tanaasuleen marka dadka loo gurmado dadka loo gurmado Ilaahay dartii loogu gurmado masaakiinta dhamanayso dhibka ku jirta oo intaas oo dhibaato ku wareegsan waxaan sheegi karna ma ahan waxa ku filan oo kaliya familka oo $100 iska jaro halkan oo family dhan
muddo bil ah bisha ramadaan aad quudiso inta ajir iyo thawaab aad helaysa fiiri walaalaha muslimiinta ah walaalaha soomaalida si khaas ah waxaan xusuusinayaa in waajib diini ah ina saaranta inaan gurmano waxa dhacayo wax caadi ma ahan in oo famil dhan oo kasoo qaxay maaragtay gurigoodii oo intay muqdisho aysan soo gaarin caruurtii iyo meesha ay ku leedeen oo markaasi hooyadii keliya ama aabihii hooyadii ay soo badbaadeen waxaan haynaa qiso kale oo ah waalidiintii oo maaragtay dhintay oo caruurtii keliya meesha ay ku hareen waxaan haynaa qiso kale oo iyadana la sheegayay reerkii nuskiisii inay wadadii kusoo wada dhinteen oo markaasi intii dambe ay soo gaartay waxa dhacaya wax caadi maahan wax qofka muslimka rasuulka alayhi salaam saddex jeer ayaa wuxuu yiri laa yu'min man huwa ya rasuul allah ilaahi ma uusan rumaynin asxaabtu way yaabeen rasuulku ku celceliyay markuu arrin rasuulku ku celceliyana xajmi weyn ay xambaarsan tahay waa kuma ya rasuul allah markaasaa wuxuu yiri man huwa shabcaan ruux dharagsan wajaaruhu jawcaan dariskiisii qofkii ugu dhowaa ayaa loola jeedaa oo u gaajeysan yahay soomaali dadkii ugu dhowaa muslimiinta ka sokow waa annaga in annaga aan dharag ku seexano habeenkii oo nabad aan ku seexano oo saddexda maalmood aan wax cunayno ay jiraan dad aan nabad haysan oona waxay cunaan aanan haysan hal miil keliya waxaan had raadinayno waxay maalintii hal mar ay cunaan anaga saddex maalin wax cunnaa ilahay wallahi aakhir waan weydiinayaa wallahi ilahay aakhir arrintan wuu na weydiinayaa wallahi ilahay aakhir wuu na weydiinayaa arrintan qof kasta oo mu'min ah oo muslim ah oo soomaali ah meel kastoo uu joogo waa inuu gurmadaa aayad qur'aan ayaa jiro dadka cabsi gelinaysa aayaddaas waxay leedahay amaada kuntum tacmaluun maxaad qabanayseen aayaddaasi waxaa loola jeedaa waxa dhacayo ilaahay subxana wa taala aakhir wuu na weydiinaya maxaad qabanayseen marka aniga ilaahay subxaana wa tacaala nafteeda iyo nafteena waxaan xusuusinayaa aayaddaas inaan jawaab u helno oo aan dhahno reer Minnesota markaan nahay waxaan ka qayb galnay July 22nd maalin jimco ah habeenka soo gelaysa 6:00 kulankii ka dhacay Safari Restaurant ee loogu gurmaday in qof walba qoys uu qaato waxaan rabnaa habeenkaasi 300 oo qoys in la sponsoro waa intaas weyn hadafka 300 inay timaado oo qof walba u dhaho qoysaan qaatay 100 waxay ka dhibaysa malaha sharafay ku tahay habeenkaasi ducaad heli ilaahay sadaqada intay socoto dadkaas ay quudinayso ilmahaagan uu ku badbaadan aakhirana kuwaas ilaahay subxaana wa tacaala way ku imaanaya markhaati kaaga noqonaa ilaahu anagoo dhiman rabno ilaahu anagoo qatar ku jirno nafteena ilaahu iyadoo ramadaan aanan haysan waxaan ku suxuran waxaan ku afurno ilaahu ruuxaasi iyo ehelkiisa wax noo soo diray ilaahu isaga iyo ilmihiisa ilaahu badbaadi ilaahu anagaa shafeeca u ah ilaahu anaga darteena jannada ku geey dambigaaga oo dhan taas lagu cafinaya jannadana iyaga ku galaysaa sadaqadaas shafeeca ku noqonaysaa gurmada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحا ليها سياد محمود علي جيلي وحان كميدا هاي جاليد سوماليد ادقن مقالة مينيابوليس قبل كمانيسوتا وحان جعلها إنان مانتا هالكا كان كقيب نقضو قيلدانكا لوغو قرقاري يددك سوماليد أبارتو كساميسي سوماليا تدفر بدن وي هادلين sababta keentay maanta inaanu hadallo waxa weeye musiibada dhacday waxa dhacay musiibo aan caadi ahayn oo inta aan noolayn aanan maqal arag taasoo keentay in dadkii Soomaaliyeed ku noolaa koonfurta Soomaaliya ay leedaan ayna u eg tahayba haddii arrintan aan ilaahay ka soo gaarin inay dadku dabar go'ayaan sababaha keenay oo kale waxaa ka mid ah walaalayaal musiibadan dhacday waxaad xasuusataan waqti aan saa fogeyn inuu dalka Haiti uu ka dhacay dhul gariir adduunka oo dhan isugu habar wacday oo u gurmaday taariikhda inta la og yahay ama warbixinaha ay hay'adaha ka shaqeeya gargaarka bini'aadanimo ay sheegeen waxay yiraahdeen waxaa dhintay dad ku dhow ilaa 100,000
waxaa kaloo iyadana jiray tsunami dalal fara badan oo Asia u badan dad ku laayay oo Soomaaliya xitaa qayb ka mid ah meelaha xaafuun iyo dad ku dilay kaas dadkii ku dhintay haddii la isku geeyo waxay gaarayaan warbixinaha sida ay kusoo gudbiyeen hay'adaha caalamiga ilaa 230,000 oo qof haddii aad maanta eegtid musiibadaas dhinac dhigtid musiibada maanta ummadeena haysata dad ku dhow 3 milyan ayaa u saaran xabaal qarka ama uba saaran inay tirtirmaan runtii gargaarka gaadhayna waxaa la odhan karaa waa aad buu u yaryahay musiibooyinka yani maskaxdaadu aanay keeni karin qofka Soomaaliga ah damiir kale yani muslimka ah aanu runtii ka gami karin waxaa ka mid ah hooyo Soomaaliyeed oo caruurteedii mar walba mid ka imanaysa oo jidka kaga soo tagaysa macaluul awgeed waxaa kaloo laga soo wariyay dad hal sharaf ah oo culimo ah oo dhawaan booqday meel ka mid ah xeryaha dadkaasi ku soo barakaceen xeryaha qaxootiga yani waxyaabaha laga soo warinayo yani maanta dhan halka kagama sheekeyn karno calool xanuun iyo murugo uun bay maaragtay kugu beeraysaa waxaa ka mid ah arrimaha yaabka leh culimada soo arkeen gabdho Soomaaliyeed oo walaalaheena oo wax maaragtay dambi ah oo ay galeen aysan jirin laakiin musiibadaas Ilaahay u gartay qadarta Ilaahay mar walba waa ku xamdi naqaynaa ayaa la sheegay oo ku jira meelo waabo ama maaragtay meelaha yani waxaa la odhan karaa shiraaq yar gudihiisa ku jira oo la leeyahay kama soo bixi karaan sababtoo ah dhar ma haystaan ay waa qaawan yihiin markaa bal Ilaahay baan ku dhaariyay bal daqiiqad kamida ka fikir in qofkaas aad adigu tahay oo kale ma inaad dibadda u soo bixi kar weeday dhar la'aan yani faqriga iyo gaajada iyo waxay gaadheen yani meelo aan yani laga sheekan karin dadkaas saas u dhimanaya oo dad muslimiina u dhibaataysan waa dad walaalaheena waxaa la sheegay hooyooyin umalan oo iyaguna saas oo kale ah bal hooyo gaajaysan oo ilmo shaqeeyo oo maaragtay murugale marka dadkaasi waa dad waxay inooga baahan yihiin gargaar innaga ayaa la rabaa inaynu u gurmano marka ugu horeysa waxa weeye waajib baa inaga saaran innaga runtii inaynu niraahno maxaa adduunku noogu soo gurmo waay waxaan anagu qabaa oo ku kalsoonahay haddii aynu Soomaalinimo muujino muslimnimo muujino gacmaha isqabsano inaynu kaafi karno waayo cadaaladna ma aha inaynu inagu wax cunno oo talaagaduhu raashin inooga buuxaan dadkeenana ay baahan yihiin waxaan qof kasta si raxmad leh oo bini'aadnimo ah oo muslimnimo ah oo walaalnimo uga codsanaya oo cajladan fiirsaday meel kasta adduunka joogto waxaan kaa codsanayaa Ilaahay baan kugu dhaariyay wixii aad ka qaban kartid ka qabo xitaa haddii aadan waxba ka qaban karin oo dhaqaale aadan ku dari karin u ducee waayo Ilaahay casiiska qaniga ah ayaa dadka irsaaqa ilaahayna yani uma waayin inuu dadka irsaaqo laakiin xikmad baa jirta haddaynu barinana waxaan ku rajoweynahay inuu inaga aqbali doono walaalayaal reer Minnesota khaasatan qof kasta oo reer Minnesota uu awoodaa inuu wax ka bixiyo arrinta tan waa lagama maarmaan waa muhiim waa waajib waa bini'aadnimo waa muslimnimo waa Soomaalinimo waxaan codsanayaa inaynan arrintaas ka seexan oo aynu fadhiga ka kacno waxyaabaha kale aan dhiirigelinay waxa ka mid ah dadku meelaha ka shaqeeyaan xitaa dadka ay la shaqeeyaan oo kale inay u sheeganayaan musiibadaas dhacday maxaad ka geysan kartaa anigu maanta qolyahan wada shaqeyno shir baanu yeelanay dadka caadiga aan wada shaqeyno oo shaqaalaha ah yani arrintii way la socdaan adduunkii laakiin haddana marka adiga Soomaali tahay dadkaas waa dadkaygii waa ehelkaygii dadka baaba'aya runtii dareen gaar ah ku reebaysaa waxay aan ka codsaday inay donation bixiyaan dad badan oo ka mid ah Mareykan oo saaxiibanahay runtii way ka qayb qaateen de adigoo Soomaaliyana waxa weeye waajib kale oo dheeraada ayaa ku sii saaran walaalayaal fadhiga laga kaco fadhi inooma yaalo waxaan kale oo ka codsanayaa haddii ayba suurtagal tahay oo TV-gan ama ajladani ay gaadho Soomaaliya dadka ganacsatada ee Soomaalida ah waajib gaar ah saaran ama dadka gobolada kale ee aan dhibaatadu ka jirin ku nool ee Soomaalida ah
waxaan qabaa inaad dareenkiina dadnimadiinu inay fiican tahay. waxaan rajeynayaa inaad fadhiga ka kacdaan oo aanay arrintu noqon un la odhan koonfur baa musiibo ka dhacday, dalku iyo dadku waa walaalo. qofka muuminka ah ee muslimka ah haddii fari xanuunto dadkao dhan bay wada xanuuntay, u fahma, u arka inay yihiin dadkan dhimanaya walaalihiin, caruurtiin oo kale. fadhigana ka kaca, waayo ganacsato badan baan leenahay. ganacsatadu waajib baa ka saaran in ay musiibooyinkan oo kale ka qayb qaataan. waxaan kaloo codsanayaa dadka madaxda ah meel kastay joogaan, mid dhaqan, mid siyaasadeed, mid bulsho, nooc doonaba ha ahaadee, inay arrintatan muhiimadda koowaad siiyaan. bilaa caleeg maanta waxyaabaha kale ee businesska laga dhigtay ee lagu wareegaalaysanaya bal hala joojiyo musiibada tan inta ilaahay naga samata bixinayo. waxaan codsan lahaa wax kastoo kale in muhiimadda arrintan abaaraha la siiyo oo la joojiyo, oo dadka loo gurmado. haddaynu inagu isku tashano oo isu gurmano, ilaaha casiiskaahina waa inugu garabgelayaa, waynu guuleysanaynaa. dadka walaalaheena waa samata bixinaynaa. waxaan kale oo ayaan daraa dadkii Soomaaliyeed way ka baxayaan dalkii. haddii maalin walba 100,000 talowdo oo dalka baxo, dalka yaa looga tegayaa. dadka marka arrintaas qudheedu waxa weeye xitaa wadaninimo ma aha in dal in la yiraahdo Kenya maanta xero kale oo qaxooti oo furtay. yani dadku xagu aadaya, dadkan dhulkooda yani wax badan baa meesha dhibaato fara badan baa jirta oo qofkii xuduudda ka talaabaana waa adag tahay inuu dib ugu soo noqdo dalka. marka qurbaan dalka dhan ummadda dhan ku dhamaanaysa ay rafaad iyo xiriir qaxooti. waajib baa ina saaran aan fadhiga ka kacno. nafteeda iyo idinka waxaa idin dardaarmayaa in arrintan aynan sahashan in fadhiga ka kacno. aakhirkii waxaan kusoo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeed runtii hadda dadaalo fara badan baa socda abaartaas ku aadan. qof kasta kolley dad un baa ka shaqeyn doona oo maamuli doona, ama halka qurbaha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan. waxaan ka codsanayaa dadkaas inay runtii ay si fiican u maamulaan, inay ka ilaaliyaan wixii musuqmaasuqa ama isdabamarin ah, oo yani runtii amaanada aanay dayicin. waayo waxa weeye qofkii amaanad dayaca waxa weeye isagana ilaahay baa dayacaya. marka maanta waxaan ka codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed, waad ka warhaysaan qaaradda Afrika waxaa lagu xantaa musuqmaasuq inuu baahay oo xitaa dalkeena uu ka galay adduunka musuqmaasuqa kaalinta koowaad. marka waxaan jeclaan lahaa in arrintan ay maanta noqoto arrin aan yani xaashaak waxaasi aanay maaragtay ka dhicin. qof kastoo mas-uula, qof kastoo magac sheeganaya, mansab sheeganaya, ama qaybka maamuladaas ama dadka maamulaya duruufa abaarahaas, waxaan codsan lahaa inaan arrintaas maaragtay sida ay tahay loo fuliyo. dadka Soomaaliyeedna walaalaheenana laba sanata bixiyo. waad mahadsantihiin. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. waadna mahadsantihiin dhammaantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan fariin halkan looga dirayaa qof kastoo muslim oo Soomaali iyo qof kastoo bini aadam ah. yaan fariinteeda aan rabaa inaan gaarsiiyo ku saabsan xanuunka weyn ee ka dhacay waddankeena, dhibaatada iyo barakaca iyo rafaadka iyo gaajada baahday ee Soomaalida haysata. waad ogtihiin maalinkii waxaa dhimatay la yiri in ka badan 60 qof oo caruur u badan oo Soomaaliya u dhimatay gaajo. marka waxaa looga naxo xanuun ah weeyaan. ummad dadkeedii alxamdulillah ay qaninimo iyo sharaf iyo wax kasta haystaan, haddana dadkooda ay saas u dhimanayaan waayaan daro. runtii adduunka dhan waa gurmaday, aad baa loogu gurmaday, laakiin waa too late. macnaa waqti aad u dambe baan gurmanay, cabaar bay socotay. wax kastana waxaa fiican markay bilowgiin in la qabto. haddana insha allah dhib ma laha, wixii aan ka qaban karna inaan ka qabanaa muhiim ah, laakiin yaan la fududaysan. siday hadda idaacadda siday hadda UNT iyo kuwa baaritaanada sameeyay ay sheegeen, waxay yiraahdeen waxaa xaqiiq ah haddii maxaan ku dhahaa aan wax laga qaban waxa socdaay inay saameyn weyn ku yeelanayso Soomaalida gabi ahaan, khaasatan ilaa iyo 3 milyan oo qof oo Soomaali ah ay gaajo u dhiman karto. taasna waa waxyaabaha cabsida laga qabo keenay UNT shir degdeg inay qabtaan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya. adduunka dhan iyo wadamada waaweyn dhan ay yabooheen
in wax laga qabta arrimaha Soomaaliya meelihii qaarkood oo lalahaa Soomaaliya lama tegi karo sida Baydhabo oo kale waad ogtihiin laba diyaarad oo kuwa UNICEF oo caruurta xanaan u waday nafaqeyn badan yaa tegay marka collaborationka Soomaalida gabi ahaan alxamdulillah ama hala dhaho shabaab ayuusan ahaanin waxaan u jeedaa xoogaa inay jirto energy ah dadka in la wada kaalmeeyo ah laakiin waxaa muhiim ah qof kastoo Soomaali muslim oo daawanayo ama bini aadam ah ajirkan fadlan wax kastoo aad awoodo ha noqoto $1 ha fududeysan qof bay wax u tartaa waxaad awoodo gudbi meesha aad ku gudbin karto hay'ado badan oo waxaa jira dadaal wada locally magaalada state-keena Minnesota iyo international iyo nationalba iyo hay'ado adiga aad raadsan karto hay'adaha waxaa ka mid ah xataa qaxootiyada haddaad la xiriiri karto xawalaalayaasha u gudbi inaad dhahdo ha loo gudbiyo xarooyinka qaxootiga ah lacagtaas oo idin soo diray way gudbinayaan dadka culimada iyo ahludiinka ah aad taqaanidu ku kalsoontihiin sida masaajidada waaweyn oo magaalooyinka ku yaala Minnesota iyo dadaal weyn bay wadaan la xiriira iyo organizationada kale oo runtii dadaalka weyn wada waxaa maqlayay ARC inay wax wado oo American Refugee Committee qolada la dhaho araha Amud Foundation baan u jeeday iyo hay'adaha noocaas oo dhan hal xiriiriyo insha Allah la xiriira marka waxaan leenahay fadlan iyaan la fududeysan xanuunka inaga un baa iska saari karna Allah raxmaanka naga saari kara bacdallahna ilaahay gacanteena loo baahan inaan u geysano waxa aan awoodi karnana aan tarno insha Allah dadkeena yaan ilaawin dadkeena way dhiban yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi magacaygu waa Nuuro Macalin Cabdiraxmaan Xaaji Aadan waxaan meeshaan isugu nimid ilaahay dartiis inaan u caawino dadka islaamka ah oo dhibaataysan xilligan aan idinla hadlayo dad ayaa dhimanaya sida la sheegay waxaa dhimanaysa maalintii ilaa 60 iyo dhowr qof waqti walba waxaa la tilmaamay inay milyan dhimanayso waxaa waajib nagu ah haddaan nahay islaam in aan wax u qabanno si walba oo loo caawin karo qofka islaamka ah qaasatan Soomaalida waxaa waajib laba jibaar ku ah haddii ay heli karaan wax kasta ha ahaado xagga dhaqaalaha inay u istaagaan oo u gurmadaan ilaahay dartiis. Asalaamu calaykum magacayga waa Safiya Yaasiin waxaan ka mid ahay Soomaalida Minnesota degan waxaan rabaa maanta inaan ka qayb qaato barnaamijka loogu talagalay in lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena ee dhibaataysan ee abaaruhu aafeeyeen waxyaabaha aan qaban karno waxaa ka mid ah in aan donate gareyno ama aan tabaruc ahaan u bixino wax alla wixii dhaqaale ah oo aan aruurin karno waxaana ila wanaagsan inaan dhaqaalahaas aan hal meel isugu geyno waliba maanta oo kale waxa ayna siinaysaa opportunity aan Soomaali ahaan ku midowno oo aan hal meel wax isugu wada geyno marka hal meel wax isugu geyno ayaa aynu wax wada qabsan karnaa waxaa jirta organizations aad u badan oo ka jira gobolkeena Minnesota haddii aynu heli karno hal organization oo aynu kulligeen ku midoobi karno annagoo ugu xilanayna haddii aan heli karno in organizationkaas uu noo match gareyn karo lacagta aan raise gareyno waxaan kaloo rabaa in aan xasuusiyo mar labaad walaalayaalo fadlan idinkoo fiirinaya muslimnimada Soomaalinimada iyo wada dhalashada dadka iyagaas dhibaataysan waxaan idinka codsanayaa in aad caawisaan wax alla wixii aad ku caawin kartaan $5 $10 $100 waana sadaqo oo waa inaan xasuusnaano wax alla waxaan bixinayna sadaqo weeye aakhiri adduunyada anfacaysa marka anagoo diinteeda islaamka kaashanayna iyo sidayna fartay in sadaqadu ay wanaagsan tahay waxaan idinka codsanayaa dadka masaakiinta ah walaalaheena oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan in la caawiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan caawa idinla hadlayaa Fartuun Cilmi Weheliye oo walaashiin ah waxa meeshan caawa isoo istaajiyay inaan la hadlo dhibaatada weyn dadkeena Soomaaliyeed haysata tan caawa aan isku hortaagna ama Soomaaliya ka dhacaysa mid dabiici ma ahan mid abaar normal ma ahan dadkii Soomaaliyeed way baaba'ayaan oo ugu yaraan 3 milyan oo caruur u badan oo waayeel u badan ayaa wadanka ku baaba'aya ayaa dadka soo sheegayaan marka waxaan si khaasatan ula hadlayaa dadkeena Soomaaliyeed in maanta wixii aad awoodo in aad meelaha sadaqada lagu bixinayo wadankii lacagaha meelaha geynayo ama xawlaadaha ama masjidaha ama foundationada oo charity-yaashaada inaad lacagta meesha geysaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo magacayga la yiraahdo Cabdiraxmaan Mukhtaar haddii aad nasiib u yeelatay in aad daawato cajaladan ama videogan daawashada ah waxa aan kugu dhiirigelinayaa adigoo qof muslim ah qof Soomaali ah
qof bini aadan ah in aad u gargaarto dadka ku dhibaataysan geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya wax aan hadda ku sharix karo ma qof kasta ayaa og qof bini aadan ah oo gaajo ama biyo la'aan u dhimanaya wax qof bini aadan ah oo ka aamusi karo ama oo ka adkaysan karo ma aha marka fadlan adigoo bini aadanimada fiirinaya muslimnimada fiirinaya Soomaalinimada fiirinaya wixii aad ku sadaqaysan karto wixii aad la garab istaagi karto dadkaas ama shilin ha ahaado $1 ha ahaado ama qadaadix ha ahaato qof alla qofkii dadkaas wuxuu ururinaya fadlan wixii aad ku garab qaban karto aad ku caawin karto ku caawi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdisalaan Cabdiwahaab Xaaji Xuseen waxaan maanta halkaan ugu imid barnaamij ah in dadka dhibaataysan oo masaakiinta ah in loo gurmado oo qof walba oo Soomaaliya meel walba uu joogo waxa uu awoodo Ilaahu 10 senti ba Allah ka dhigay ama wixii ka yarba qof walba uu isxilqaamo uu sameeyo waxa uu awoodiisa ay tahay ama even xitaa uu raadiyo maanta waxa maqaal igu ah in dadka biyo ay cabaan ay waayeen oo dhiigga xoolaha doorada dhiiggeeda loo qalaayo si qofka biyo loo siiyo marka annagana waxaan ku jirnaa nolol aad iyo aad qiyaalo ah oo u haysan inay garanti tahay marka ilaahay anagoo tiisa raacayna oo maaragtay dhahay ilaahayna quraankiisa ku sheegay uu yiri isu naxariista maanta marka Soomaali waana la fiirinayaa meel walba aan joogno ilaahayna waana fiirinayaa soo marka dadkeena dhibaataysan waa inaan maaragtay aan waxaan tari karnaa tarna midda kale waxaa jira barnaamijyo ah barnaamijyo lagu sameeynayo meelaha parkaha ah oo maaragtay ku yaala magaalada Minneapolis area aan ku qaban doono maxaa la yiraahdaa barnaamijyo concert ah maxaa la yiraahdaa cunto wixii awoodo Soomaali ah waxay keeni karaan biyaha noqdaan juice ha noqdaan coke ha noqdaan anybody wax walba oo hore u soo qaadi kara si aan u iibino oo lacagta u kaash gareeyno aan ugu geyno aan dadka ugu dirno yaa sameynana insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan hopefully aan filaynaa inay noo dhamaato 30 bisha barnaamijyo badan baa jira oo qof walba waa isxilqaamayna ilaa hadeer laakiin waxaan rabnaa inaan hal meel isugu geyno si aan number fiican u helno. bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la yiraahdaa Abdul Ibrahim waxaan ka mid ahay dadka degan gobolka Minnesota khaasatan magaalada Minneapolis fadlan walaalayaasheedan aan la hadlayo waxaan walaalaha gargaar degdega u qabto walaaladiin dhibaataysan hay'adooyin badan baa jira oo ciida ka badan oo lacag ururinaya mid walba waad ku tuleen kartaan inaad wax ugu qabataan waad mahadsantiin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو محمود مسعدة طبعا انتي نيتقانا وحانا هاي وريها سومالي تي في قبل كمان صوتا طبعا أنا بدنا مو بدينا ملها ننتهي مع ذوان وحسوجي ذي لكن waxay ugu xambaaraya maanta inaan dareenkayga ka hadlo xaaladda abaareed dhibaatada leh ee ka jirta waddankeena hooyo Soomaaliya sidaad ogtihiin maanta waxay joogtaa meeshii ugu liidatay xaaladda nololeed ee dadkeena Soomaaliyeed 20 sano waxaa soo daashatay colaad aad u fara badan intii colaadii ka hartay Ilaahay badbaadiyeyna waxay haatan u dhimanayaan asqo oon iyo gaajo waa dareemi kartaa qof bilo aadan ah marka uu gaaro heer uu u dhinto markii uu waayo wuxuu cuno waan ogahay aniga iyo inta kale Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ila degan dabcan nolol fiican baan ku jirnaa faranjiiradeena cuntaa ka buuxda qofku markuu baahdo ama uu daqiiqad ka bacdiba meel wax kala soo baxaya shaqo kama warwalayo nabad kama warwalayo caafimaad darro kama warwalayo intaad bal dib u fakarto oo gadaal u fariisatid 2 daqiiqo maskaxdaada waxaad weydiisaa haddii dhibka dadka Soomaaliyeed maanta haysta ee adiga ku qabsato sidaad noqon lahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu awoodaa
in uu wanaagga iyo nabadda iyo hantida iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka aad haysataan inuu inta naga qaado uu dadkaas siiyo, ayaga dhibaatada ay ku jiraan uu annaga noo soo raro, ilaahay agtiisa waxba kama ahan. Marka waxaan walaalahayga Soomaaliyeed aan ku boorinayaa inaan u fahanno inay meeshaasi cashir ku jiro, inaan u fahanno in ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala in uu nagu eegayo waxaan haysanno, berritana nala weydiin doono sidii aan u bixinay iyo dadkaas Soomaaliyeed ee walaalaheena ee dhibaatadu haysata waxaan ka tarnay. Ma rabo inaan hadal ku dheeraado, dabcan walaalihii kale Soomaaliyeed ee ugu horreeyay ayaa xanuun ka taabtay. Anigu waxaan keliya oon tilmaamayaa in qof walba oo Soomaali ah uu wuxuu awoodi karo ee ku tabaruci karo ee walaalihii Soomaaliyeed ee maanta gaajada iyo baahida u dhimanay. Bal imagine marka ay baahi ku disho, cudur kuma dilin, xabadii kuma dilayso, wax baahi bay u dhimanayaan dadkii. Marka ilaahay subxaana wa tacaala adinka inta baahida idinka soo waday, Maraykanka idin keenay, dhaqaalihii hanti idin siiyey, ayaga uma waayin, laakiin waa la isku itixaamayaa. waxay taagan tahay maanta maalintii itixaankaasi lagu baasi lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Saadiq Qorfa, waxaan halkan marka hore aan fariin ku saabsan abaarta Soomaaliya uga dareeyaa dadweynaha Soomaaliyeed oo barnaamijka Muqdisho Times meel walba ka fiirsanaya. Walaalayaal, abaartii Soomaaliya si xun bay dadka u dhamaadeen, xoolahoodii iyo dadkiiba way dhamaadeen. Walaalayaal, Soomaaliya cid uma maqna, Ilaahay baa u maqan. annaga haddaan nahay Soomaalida Minnesota ama Soomaalida meel walba joogtana waa inaan u istaagnaa oo abaaraha aan kala qayb galnaa walaalaheen. walaa tacaawinuu cala albirri wattaqwa waa Ilaahay yidhi. walaalkaa markuu dhibaataysan yahay inaad u gargaartid weeye. Soomaali dadku way noo baahan yihiin, walaalaheen way noo baahan yihiin, hay-ado badan ayaa ka jira oo Soomaali dadkooda u joogo. Please help, please mataqaana wax la waxa awoodiin dadka walaalaheen u gaarsiiya. annaga unbaa u maqan, Ilaahay baa u maqan, laakiin waa inaan community-da Soomaalida meel walba aad joogtiin oo aan message-kan ka daawanaysiin. walaalayaal, dadka u istaaga, Ilaahay ka cabsanno. dadkeena gaajo ayaa jirta, wadnihii baa dadkii abaartii baa dhammaystay. waxaan ka codsanayaa hay-ado badan oo Soomaaliya ka shaqeeya ayaa jira, lacag u bixi, please help, wax alla waxaad awoodid dadka gaarsii. aad baa u mahadsantihiin. walaalkii Ilyas, Muqdisho Times aad u mahadsan yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta waxaan halkan ka soo daynayaa oo ka salaamayaa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba. waxaana halkan leeyahay dadka Soomaalida ha loo gurmado ku dhimanaya Soomaaliya meel kasta, siiba meelaha koonfurta Soomaaliya, gobollada qaarkoodna aanay jirin si loo caawin karo. waxaynu ka warhaynaa abaaraha, dacdarrada, gaajada iyo dhibaatooyinka haysta dadka Soomaaliyeed ku nool gobollada koonfureed ee Soomaaliya. waxaynu rabnaa inaynu inagoo joogno Maraykanka iyo meel kasta oo adduunkaaba inaynu u dadaalo u ururino waxaynu kari karo, ku xiro hay-adaha la shaqeyn kara. marka waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku sugan tahay in ay baaba'do, dad badani tirtirmaan, xasuuqoo kale ayay u eg tahay waxaa hadda dhacayaa. markaa xasuuq ah laga hortago, dadka Soomaaliyeed oo midaysan ha u kaceen, ilaahayna ha la kaashadeen. sidaas ayaan anigu maanta halka ka soo jeedinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal, magacayga waa Cabdikariin Axmed Daahir, waa nin ganacsada aqoon-yahan degan magaalada Minneapolis. Soomaaliya saa la socotaan walaalayaal, abaartii ugu xumayd 60kii sano ugu dambeysay ayaa nahays. dadka waxaa moodaa inayan fahamsiisnayn abaarihii hore ee na soo maray abaartan waa ka daranta. warbixinaha la hayo waxa waaye in Soomaalida gudaha ku nool 40% ay ku dhimanayaan abaarahan haddaan la caawinin. waa abaar xun, waa abaar dhibaato badan leh. waxaan dalab u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ku nool magaalada Mataanaha ah iyo gobolka Minnesota inay wejiga Ilaahay ku caawiyaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan. walaalayaal, oo dagaalku dadku wuxuu ka reebaa, laakiin gaajada ama abaartu waxba ma reebaan. dalka oo dhan inay haystaan, meel kale maaha. weliba waddanka Kenya iyo Ethiopia dhinaca Soomaalidu ay degaan xataa abaartan waa haysataa. marka fadlan baaqayga ugu horeeya waxa waaye walaalayaal ha la caawiyo. Yurub oo dhan waxaa ka socota campaign xoog leh
haddaad fiirsataan universal t v waa arkaysaan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. magacaygu waa Rooble, nin dhalinyaro oo Soomaaliyan ahay oo degan gobolka Minnesota. maanta waxaan fursad u helay Muqdisho Time oo maanta baaqayga adduunweynaha gaarsiinaysa insha Allah annagoo joogna Arana Tax Service. waxaan halkan fariin aan uga diraya dhammaan dadka walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kastay maanta ku nool yihiin. waad ogtihiin dhibaatada ka jirta maanta dhulkii hooyo waddanka gudihiisa, borderka Ethiopia, borderka Kenya iyo borderka Djibouti agagaarkeedaba waxa ku dhimanaya oo ku baktiyaya waa dad Soomaaliya. dadkaas waxa barakiciyay dagaal maahin, wax kale maahin, waa abaar baa dhacday. abaartan siday adduunweynuhu ay sheegayeen wallahu yaclam, populationka Soomaaliya waxaa laga baqayaa oo ku nool dhulka Soomaaliya maanta 40% inay dhintaan, ay u dhintaan gaajo, inay u dhintaan. please haddii aad $1 dhibtid, $1 wuxuu save garayn karaa 1 baby. waana abaartii ugu xumayd 60 sano oo Soomaaliya soo martay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intii dhegeysanaysa magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed ciise barre. sababta halkan aan usoo fadhiistay aan nila hadlayo waxay tahay dadka walaalaheena dhibaateysan oo maanta macnaha wax waaye waddanka jooga ama waddanka macnaha banaankiisa qaxooti ku ah, isla markaasna aan heli karin wixii macnaha adiga aad haysatay ama aniga aan haysto. marka min fadlan soomaalinimadii aan laga tegin, walaaltinimadii macnaha waxa waaye dhaqanka dheeraa, diintii, macrifadii, isku xirnaantii sidai ahaan jirtay macnaha waxa waddankeeni yaan laga tegin. dadkaas dhibaateysan hala kaalmeeyo. waxaan ogaataa qof walba oo maanta unug Soomaali ah inuu u dhimanayo gaajo awgeed, adiga oo ladan oo cunto haysata, adiga oo ladan oo wax kaa badan haysata. marka min fadlan waxa kaa badan wax yar ha ahaado, gaarsii qofkaas walaalkaa dhibaateysan. ilmaha maanta dhibaateysan ee ku dhimanaya halkaas ama gaajada u dhimanaya sida ilmahaaga oo kale magacayay leeyihiin, waa Soomaali. sida macnaha waxa adiga cunugaaga waddan qaleeda ayaa macnaha waalidkood waddan qanaya. anigoo ah Abaadir Cismaan Xaashi, in kala soo hadlaya Safari Restaurant ama Banquet Center. waxaan ka codsanayaa dadkayga meel walba ay joogaan oo Soomaalida ah oo ah dad aad iyo aad qaali u ah oo deeqsi ah inay ummadeena Soomaaliyeed oo maanta lacinaya ama gaajo iyo roob la-aan iyo oon u dhimanaya meel walba inaan caawino. walaale Soomaaliya haddaad tahay walaalo aan ummadeena u gurmano, aan caawino, aan maanta wax u tarno inta ay gaajada u laan lahaayeen. بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga عبد القادر محمد عاطو. waxaan ku noolahay magaalada Minneapolis. waxaan halkan idinku sheegayaa maaragtay inay ka jirto Soomaaliya oo dhammaantiin aad ogtiin oo niyada ka aqrisateen abaar aad iyo aad u saameysay dalkii Soomaaliya, macluul darteed dad badan ay u dhimanayaan. My name is Mohammed Jama. Today there are 60 kids that are dying because of hunger. There's a huge drought that's happened in Somalia. We need your help as a Somali community in this state and outside in this country. We need your help. How do we need your help? Please donate out of your pocket, $5, $20, $100, whatever you have. Give it back. Give it back to your community. Give it back to your country. We need this money to save lives. This is a civilization. This is your people. And in order for us to be Somalis and to reunite, we need to save them. So please give back. السلام عليكم. magacayga waa Maryan Ismaaciil. walaal waxaan meeshan maanta isugu nimidnay waxa weeye inaan dadkeena walaaladeena ee Soomaaliyeed ee meel kasta ku dhibaataysan inaan dhibaatada inaga Soomaali ka dhalanay, inaga xumaantoodina dhibaysaa, inaga maxaa la dhagaa muxumo u dhimanayna. walaal waa inaan wax u qabano. qofkii wax aboodi karaana inuu yimaado masaajidka dacwo uu halkaa wax keeno iyo walaalayaal loo baahan yahay oon inaga muslina isku dabaalayno oon isku dhibaatada iska saarno iyo walaal si runtu tahay loo baahan yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal magacayga waa Maxamed Muuse. waxaan rabaa inaan isku xasuusiyo saalu socoteen walaalaheen Soomaali ku nool abaar daraaddeed u dhimanayaan iyo biyo la'aan. marka walaalaan u soconaa quraanka Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri suuratul al-Hakim dhamaadkeeda thumma la tus'aluna yawma idin 'an naciim. wax walba aan cunayno iyo waxaan haysanay afqaan Allah subhanahu wa ta'ala wana weydiin doonaa maanta qiyaamaha. marka walaalayaal cuntooyinkan aan cunayno iyo waxaan ku raaxaysanayno inta ka fikir leena ka fikirno walaalaheen ku dhimanaya Soomaaliya. marka السلام عليكم
magacayga waxaa la dhahaa aamine jaamac xasan. maanta halkan waxaan u fadhiyaa inaan ka hadla rabaa dhibaatada soomaalida haysato, abaaraha dadkeena walaalaheena ah oo ku baaba'aya Soomaaliya oo ka soo qaxay abaaraha, roob la'aanta iyo dhibaatada. marka waxaan rabnaa haddaan nahay dadkii walaalaheena ahaa inaan kulligoona u gurmano, ilaah baa gurmad lehe, oon dadaalno oo qof kasta maaragtay 3 waqti wax u cuni karo, ayagana ay haysan hal waqti inay wax cunaan, inaan wax iska goyno, u soo aruurino, qofkii iska goyn karo iska soo gooyo, qofkii kale uu dadka walaalihiis u galo. waa inaan u dadaalnaa. ilaahay baanana amray walaalkaayo baahan inaan adigana aadan dherer ku seexan oo aad la murugooto oo la dadaasho. insha allah ilaahay idankiisa waan dadaalaynaa haddii ilaah yiraahdo. muxuu ahaa masjid dacwana dad badan ayaa rabaan inay maaragtay community-ga iyo RLC iyo araha kulli inay ayagana dadaalaan. marka waxaan dadaalaynaa insha allah community Soomaalida oo dhan oo joogto Minnesota waan dadaalaynaa insha allah.